waxaa laga yaabaa inta badan inaad maqasho madaxda Turkida ama shacabka Turkida oo ku celcelinaya sanadka 2023 halka ayaa rabnaa inaan gaarno 2023 mashruuca ayaa rabnaa inaan xarig ka jarno balse ma isweydiisataa wada xiriir ka dhaxeeya Turkida iyo sanadka 2023 xalqadan maanta waxaan si yar oo kooban uga hadli doonaa sirta ka dambaysa in ay Turkidu ku hamiyaan in ay mar u gaaraan sanadka 2023 mar labaad iyo mar saddexaad saaxiib yaa ku soo dhawaada kanaalkayga magacaygu waa Yamyam haddii aad kanaalka hore ugu taxanayd fadlan like saar haddii aad hadda ku cusub tahayna fadlan like iyo subscribe saar si aan uga jawaabno weydiinta maxaa ka dhacay Turkiga sanadka 2023 waa in aan wax yar taariikhda dib ugu noqono ama waa in aan taariikhda dib u milicsano qarni ka hor ama 100 sano ka hor waxa dunida ka dhacay dhacdo saameyn weyn leh waxayna ahayd kala furfurashadii ama dhicitaanka khilaafada Cusmaaniyiinta taas oo dunida ka talinaysay muddo 600 oo sanadood ah ayuu xukunkeedu dunida qaybo badan oo kamid ah ka talinayay 600 oo sanadood waqti yar maahan kadib dagaalkooda adduunka markii uu dhamaaday waxa dhacay heshiiskii loo yaqaan Lausanne kaas oo u dhaxeeyay dawladihii xulafada ahaa ee dagaalkooda ku guuleystay iyo Turkiga heshiiska xilliga la saxeexay waxay ahayd 24 July 1923 heshiiska wuxuu ku khasbay Turkiga inuu soo afjaro ama niyadda uu ka saaro waxa la yiraahdo khilaafada Cusmaaniyiinta oo ku bedelo waxa loo yaqaan Jamhuuriyadda Turkiga sidaas ayuuna qalinka ugu duugay asaasihii Jamhuuriyadda Turkiga ee aan hadda naqaano Mustafa Kemal Atatürk xilligaas ayana soo bilaabatay Jamhuuriyadda Turkiga ee aynu hadda naqaano qodobadii ku jiray heshiiskaas ama aan dhahno qodobadii laga saxeexay Turkiga waxa ay oranayeen qodobka koowaad oo kale waxa uu oranayay in suldaankii khilaafada Cusmaaniyiinta laga masaafiriyo Turkiga iyo in lala wareego dhammaan hantidii ay lahayd khilaafadii Cusmaaniyiinta qodobka labaad isagu wax uu oranayay in Turkigu uu ka tanaasulo dhulkii ay maamuli jirtay khilaafadii Cusmaaniyiinta dhulkaasna waxa kamid ah wadamada sida Suudaan oo kale Masar oo kale ayaa kamid ah Liibiya oo kale ayaa kamid ah Ciraaq oo kale ayaa kamid ah Qubrus oo kale ayaa kamid ah iyo dhulkii la isku oran jiray Ardu Sham ama Sham qodobka saddexaad wax uu oranayaa in la calaamadiyo xuduudda u dhaxayn doonto wadamada Bulgaariya, Greece iyo Turkiga qodobka afraad isagu wuxuu oranayaa in marinbiyoodka Bosphor loo yaqaan in loo aqoonsado inuu yahay marinbiyood caalami ah oo Turkiga uusan wax lacag ka qaadi karin maraakiibta maraysa marinbiyoodkaas oo uu la mid noqdo wadamada kale ee caalamka dabcan qodobadaas laga saxeexay Turkiga natiijadii ka dhanaysay dhibaato weyn ayay ku ahayd dawladda Turkiga dhibaato ayayna ku tahay tan iyo maanta qaybo kamid ah qodobadaas laakiin Turkigu wuxuu ku khasbay heshiiskaas inuu ku dhaqmo qaybo kamid ah muddo 100 sano waligiisba ku dhaqmayo heshiisku wuxuu ka soo bilaabay 1923 wuxuu ku khasbay Turkigu inuu heshiiska ku dhaqmo ilaa iyo 2023 sida uu marar badan ballan qaaday Erdogan wuxuu sheegay in ay Turkigu dib u dhalan doono sanadku markuu yahay 2023 sababtoo heshiiskaas qaybo badan oo kamid ah ayaa soo afjarmi doona si kastaba ha ahaatee waqti xaadirkan joogno Turkiga waxa lagu tiriyaa 20ka wadan ee u dhaqaalaha badan adduunka sanadku markuu ahaa 2002 Turkiga wuxuu ka soo dhaqaaqay kaalinta 111 waxa uu soo istaagay kaalinta 9 maantaan joogno wadamada u dhaqaalaha badan adduunka meesha ay higsanayaan Turkidu inay gaaraan sanadka 2023 waxa weeye in ay noqdaan wadanka 10aad ee u dhaqaalaha badan adduunka fadlan saaxiib kanaalka haddaad hore u taxanayd like saar haddii aad hadda ku cusub tahayna like iyo subscribe saar aad iyo aad u mahadsan